Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Marka aad u fiirsatid abuurta Ilaahay ee kala duwan ee kownkan ku nool, ayaa waxay mar walba ina tusaysaa awoodda iyo xikmadda Ilaahay. Haddaba maanta waxaan barnaamijka ku soo qaadan arrimo ku saabsan geedaha iyo sida cajiibka ay u shaqeeyaan. Geeduhu say u tarmaan waxay u baahan yihiin in mirahooda ay dhul kale ku tallaalmaan. Haddaba geedkan ayaa qisadiisu cajiib tahay. Xaarwalwaalka ama doorshaanka sidaan ognahay waxa uu godkiisa geystaa saalada ama digada si ay ilmihiisu nafaqo uga helaan. Haddaba geedkan laga helo South Africa oo la dhaho South African Restiad ayaa waxaan mirihiisa laga aqoon oo ay aad ugu egyihiin saalada deerada. Waxa taas u sii dheer in xataa mirahaasi ay u soo urayaan sidii digadii. Bal isku day inaad adigu ka jawaabtid labadan shay kee ayaa miraha geedka ah. Markuu doorshaanku arko miraha geedkaas ayuu u qaadayaa godkiisa. Laakiin maadaama uusan cuni karin oo ay mirahaasi leeyihiin qolof adag, waxa ay keenaysaa in geedkaasi hadhow halkaa ka soo baxo oo doorshaankii godkiisa ku ciriirsho. Maadaama aysan geeduhu ka carari karin cadowgooda cunaya, ayaa qaybtood waxa uu Ilaahay ku ilhaamiyey inay iska dhigaan waxaysan ahayn. Tusaale ahaan dhirtan la dhaho pebble plant ama living stone ayaa waxay u egyihiin dhagxaan dhulka taala si aysan xayawaanka kale aysan u arag oo aysan u cunin. Dhirtan ayaa waxay u eg tahay dhagxaanta ku hareeraysan. Marka kaliya ee la garan karo waa marka ay ubax yeelato oo ubaxu u soo baxo. Geeduhu xayawaanka kaliya ma khiyaamaan. Ilaahay ayaa waxa uu siiyey qaybtood awood ay xataa bani aadamka ku khiyaami karaan oo ay kaga badbaadi karaan in dadku ay jaraan oo gooyaan. Waddamada leh beeraha aadka u waaweyn oo bariiska aadka looga beero ayaa waxaa laga helaa caws la dhaho barnyard grass, weliba nooc ka mid ah oo aad ugu eg bariiska. Cawskaas oo ekaanshaha uu u egyahay bariiska ayaa keentay inaan la goyn. Laakiin noocyada kale ee cawskaasi ee waddamada kale laga helo uma eka bariiska. Taas ayaa waxaa loo fasirtay in si cawskaasi uga badbaado in la jaro ay mirihiisu ugu ekaadeen bariiska. Haddaan u gudubno ubaxyada geedaha oo ah meesha miraha geedku ka soo baxaan, ayaa qaybtood leh muuqaallo cajiib ah iyo ur ay ku soo jiitaan xasharaadka si ay xasharaadkaasi uga qayb qaataan bacriminta geedka. Ubaxyada badankood waa ur fiican yihiin, laakiin ubaxyada qaybtood ayaa ur nooc kala leh. Sida geedkan la dhaho Hydnora africana oo ubaxiisu muuqaal yaab badan leeyahay. Waxaana ka sii yaab badan inuu ubaxaasi u soo uro sidii xayawaan bakhtiyey oo kale, si uu u soo jiito duqsiyada iyo xasharaadka kale ee bakhtiga jecel, si ay uga qayb qaataan bacriminta geedkaas. Waxaa kaloo jira ubaxyo kale oo muuqaallo cajiib ah leh, sida ubaxan aad moodo bishimo guduudan. Geedkaas ayaa waxa uu ka baxaa bartamaha iyo koonfurta Afrika. Iyo ubaxan kale oo aad moodo inuu u egyahay laf madaxa. Geedkaas ayaa waxaa la dhahaa snapdragon, waxaana laga helaa Yurub. Ubaxiisa goortuu bakhtiyo ayaa waxa uu u ekaadaa laf madaxa. Intaas ayaan ku soo koobayaa macluumaadkii aan maanta soo arooriyey. Haddii ay faa'iido leeyihiin, fadlan like garay, hoostana ku soo qor ra'yigaaga. Intaan madama kulmi doono, nabadgelyo, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.